موسى قال وحو كمد يهي قدقة دورشوينka heer federaal Puntland qaabilsan doorashada ayuu maanta goobjoog ka ahaa sida wax u dhaceen oo inta badan sanatarada halkan ku soo baxay maanta ay dhamaantood hambaliyeen soo dhaw Muuse bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ugu hambaliyeenayaa maanta waxa ka dhacday doorasho runtii ku dayasho mudan oo aad iyo aad loo agaasimay waxay ku dhacday si daahfuran oo cadaalad ah oo transparency ah bay ku dhacday waa u hambaliyeenaynaa insha Allah sanatarada soo baxay oo 12 ah oo dhammaan aan u arko inay yihiin dad odayaal oo matali kara maanta Puntland oo ay ku haboonayd inay halka tagaan hadda ka hor ku haboonayd laakiin insha Allah hadda mar haday tageen aad baan ugu kalsoonahay inay wax qabad badan sameyn doonaan oo dalkooda iyo dadkooda iyagoo u adeegaya wax badan qaban doonaan baan rajaynaynaa annaguna guud ahaan waxaan jecelahay insha Allah doorashada inaan sidaas hadda maanta ay socotay u sii wadno ilaa dhamaadka aqalka sare aqalka hoose oo doorashadu soo gabagabayso dhammaan gobolada maamul goboleedyada dhammaan waan wada tagnay doorashooyinkana aqalka sare waa laga soo wada qabtay intooda badan inkastoo qaar reebeen qaarna berri baa laga qabanayaa sida galmudug oo kale oo waxa jooga guddigayagii guddi la mid ah waxaan tagnay Jubbaland oo waxaan tagnay koonfur galbeed waxaan Puntland iyo galmudug intaba waa la tagay galmudugna berri baa laga qaban doonaa ساسان ربنا إن شاء الله وإن نودنا إن شاء الله دورشة إلا ربنا. جودك دورشة ما كوكنا حسين هاي سيدا القصة حلي سيدا ما أنت يقصة بحين كوي تبك سنة تر بنت. وكوكنا حسنا هاي أنا جو وحنا نكى مركي قفكو صبح ولا شيء جو قدومية برلمان كو يرادون كاسا كو صباحي نكى حقيقينا أنا جو كأه كوديجا هركلنتا دورشة هير فترال inay si xalaal ah ninkaas u soo baxay oo aanu insha Allah u aqoonsanayno inuu senator xalaal ah iyo doorasho xalaal ah ku soo maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uu bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah